colaadu hawiye daarood bay ahay wixii daarooda ana damiinan jiray waxaan ku damiinan jiray inuusan dhiig qabin oo dad dilin inuu xoolo Soomaaliyeed una dhicin waa dad aan qabiil lahayn oo qaam la yiraahdo qaam hadii aan ku macnayo waa qabiil malawoy qaam waa tuulo 20 kilomitir u jirta magaalo xeebeedka koonfurta Soomaaliya dhacda ahna xarunta ku meel gaarka ah ee dawladda Jubbaland ee Kismaayo waxayna kaga beegan tahay jihada waqooyi xilligii dawladdii dhexe ay dalka ka talinaysay qaam waxay ahayd mid ka mid ah xeryaha tababarka ciidanka xoogga dalka balse maanta waa magaalo ay si nabad ah ugu wada nool yihiin dad isku dhaf ah oo ka kooban qabaa'il kala duwan Cali Faarax Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa macallimiintii xerada tababarka ciidanka xoogga dalka burburkii ka hor laakiin maanta waa gudoomiyaha qaam ahna mid ka mid ah rukumada iyo tirarka isku haya dadka iyo deegaankan wuxuu sharaxayaa sidii lagu aasaasay qaam duruufihii ay soo martay iyo waxa ay uga duwaneyd deegaanada kale ee dalka kuwaas oo ay saameeyeen colaadihii sukeeye qaam asaaskeedu wuxuu ahaa 19 markay dawladdii dhexe burburtay annagoo dhowr nin ah oo macallimiintii dugsigan tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ah yaa waxaanu ku tashanay colaadan loogu magac daray hawiye daarood inaan ka qayb gelin aan gooni isaga taagno hawshii waanu isku waafaqnay ilaahay waa nagu guuleeyay markii la arkay dad hawiye daarood isugu jira oo hubaysan oo meel degan dadkii shacabka ahaa waa nagu soo qaxay oo nagu soo cararay annaguna dadkii waa soo dhaweynay oo waanu maxaan ku yiraahdaa gacanta qabiil kasta ha ahaado waanu soo dhaweynay waan dajinay beerahanagii baan dajinay badadkanagii baan u dajinay meeshaasaanu ku waardiyeynay oo maxaan ku yiraahdaa ku ilaalinaynay ilaahayna waa nagu garab galay oo waanu ku guulaysanay adu laba waqti hogaamiye kooxeedyadii markii UEC-dii soo gashay iyo markii ay ka baxday oo SBM ay soo gashay labada waqti baa horta annaga noogu adkaa inkastoo aan wax dhib ah aan loo geysanin laakiin waardiyaheeda iyo ororodkeedii iyo reebel baa joogay iyo xaqana ay ahayd iyo agajugleyn lagu daayay wixii labada jeer ka dambeeyay waana la aqoonsaday sababta taliya hogaamiye kooxeed kasta waan aqoonsaday uu ogaaday qaabkanaga iyo systemka aanu meesha ku joogno qof kasta oo hogaamiye kooxeedii waa soo dhaweeyay arinta aanu meesha ka sameeynay waa soo dhaweeyay waa nagu taageeray garab uu nagu siiyay mid kastaaba wuxuu nagu dardaarminayo nagu la ballamahayay te wixii jiriyaana idinka iskaga filan wixii ka badanna noo soo sheega annaga meel idinka saarayne sidaas ay hawshanadu ay ku aga dhigatay ku degtay ku hirgashay sida la wada og yahay in badan oo kamid ah deegaanada Soomaalida waxa ka jirta xaalufin lagu hayo dhirta waxaana ka dhashay saameyn taban balse qaam waxay ka nabad gashay jaridda dhirta waxaana isku mag aha qofkii qof dilay iyo qofkii geed gooya iyada oo ay intaasi u sii dheer tahay in deegaanka laga musaafiriyo shakhsigii lagu helo dambigaasi geedahan aad arkaysaan waxay la mid yihiin dadkii aanu ammaan gelinaynay ee la mid yihiin macnaha waa geedahan quraacda waaweyn ee aragtaan la harsanayo waxay noola mid yihiin dadka oo kale annagu waxaanu dadka aan ku sheegay oo ku tashaday inaanu barnaamijka sameeyno waxaanu ahayn dhamaantanno askar baanu ahayn oo dawladdii dhexe ciidankeedii baanu ahayn markii la soo qorahayo ciidamada aanu soo galinay askari kasta waa la dhaarin jiray waxa lagu dhaarin jiray inuu diintiisa dalkiisa dadkiisa uu daacad u noqonayo geedahani waxay ka mid yihiin dadkii dhulkii iyo maxaan ku yiraahdaa dadkii aanu u dhaaranay bay la mid yihiin dadkaanu u dhaaranay dhulkaanu u dhaaranay geedahaanu u dhaaranay hantida dawladda aanu u dhaaranay wixii dawladdu ay lahayd oo dhanna waa kaailka casoo waad indhahaaga ku aragto guriyihii iyo xafiisyadii dugsiga waa kuwa hortaada ka muuqda geedihii waa kuwan
sidii ay ahaay markay dawladdu burburaysay ay ahayd inay ka sii qurux badan tahay oo ka sii wanaagsan tahay ma ogiye wax ka dhacay ma jiro baraagaheedii baa kuwaasa xafiisyadeedii baa kuwaasa taalooyinkoodii baa kuwaasa wax ka maqani ma jiro way dhammaystiran tahay annaga geedka iyo qofku isugu kaa yimid wey qofkii qof dila iyo qofkii geed gooya ma isku mid ba annaga agtanada horta dil qof kamaba jirinba qof la dilo annaga agtanada kama jirin laakiin geedkaa haddii la gooyo qof la dilay oo kale magtiisaanu ka qaadi jirin waxa kaloo noo dheerayd qofkii aanu ku aragno geedka oo laga qaado magtiisa iyo isaga oo la raro magta laga qaadahaya waxaa uga dhib badnayd oo uga cuslayd raritaanka markii la raro dee awal cadowgii iyo colkii uu ka soo cararay iyo bannaan isu taagayaa soo maa taasaa uga darnayd marka dadku cabsi uu cabsanayo in la raro oo laga raro deegaanka laga raro iyay dhirtan uga carareen uga cabsadeen annaguna dee habeen iyo maalin kabaanaan dhex baxaynin gudoomiye Cali Faarax wuxuu sheegay in dadka ganacsada dhirta iyo dhuxusha ay qiimo kasta u gaareen si ay macaash uga sameeyaan geedaha waaweyn ee ay caanka ku tahay qaamqaam balse ay ka diideen waxaad arkayso iyadoo waddanka uu ka jiro cagabarar baahitii ugu xumeyd ay ka jirto iyo dhirtaasi meeshaa ku tiilay waxaa jiray dad ka ganacsada dhirta iyo dhuxusha ka ganacsada wax alliyaala waxaad doontaan idinku sheeg wuxuun sheegta waxaad sheegataan baa laydin siinayaa wana ordoo naga tagaano waxba ma sheeganayna dhirtaa cid aanu maxaan ku idhaahdaa la wadaagaynaa ma jirto waanu diidnay waan diidaynay waan iska eryeynay marka laga reebo hadhka qabow ee ay dadku harsadaan iyo quruxda geedahan Cali Faarax Ismaaciil wuxuu carraba ku dhuftay faa'iidooyin kale oo ay geedahan qudhacdaha leeyihiin waa taa maanta quruxda badan oo dadkii saaka 2 saac yimid qorax bilaanteed mayna arag hooskaasay ku jiraan nimcadaasay ku jiraan nimco badan buu leeyahay geedku oo aan ahayn keliya quruxda iyo hooska keliya aan ahayn waxa wuxuu bixiyaa midho geela loda ariga dameero intuba ay cunaan oo abqa la yidhaah si fiican ku fahmay yaa ka baxda marka waxa kaloo intaa dheeraa deegaanku mar buu xoololey lo u badan yuu ahaa beeraley la tabcado lahaa beeraha balkooda markii sabuulka lagala soo baxo balka geedahana lagu rari jiray oo gaadiid buu ahaa geedahani gaadiid bay ahaayeen geed kasta gaadiid buu ahaa marka faa'iido badan iyo nimco badan bay geeduhu leeyihiin sidaasaanu u ilaalinaynay sidaasaa taariikhdooda iyo xeerkooda iyo dhaqankoodu sidaasoo hayl kacsoon ilaahay hadda ma shaqeeyaa sharcigii ahaa sharcigii baa shaqeeyay kuwa qaxootiga ee halka hadda aan ku soo ururinayno kuwii aanu geynaa mikrofon baa la isla dhex taagaya waxa loo sheegayaa sharciyada iyo nidaamka dhirtaasi ay leedahay inaan lagu saqajaamin wax ku soo saqajaamahayo wax saqajaami karaa midna ma jiro inkastoo hadda aysan jirin oo waddanka uu dawlad leeyahay haddana markii la asaasay qaamqaam waxay ahayd burburkii kadib si dadka deegaankan ay uga nabad galaan colaadii sukeeye waxaa jiray shuruudo looga baahnaa qofka soo degaya ama doonaya inuu ku noolaado halkan hadda waqtigaas 19 shuruudihii dadka aanu ku dejinaynay hadda ma yaalaan oo waa wadan dawlad la wooyay xilliga maxay ahayn shuruuduhu xilliga waxay ahaayeen qofka matalan colaadu hawiye daarood bay ahayd wixii daarooda anaa damiinan jiray waxaan ku damiinan jiray inuusan dhiig qabin oona dad dilin inuuna xoolo Soomaaliyeed una dhicin inuuna qof dakanaysan oo qof Soomaaliya u dakanaysan una ahayn inta markii laga xaqiijiyo yu degsimada ka qayb gali jiray haddii lagu helo inta wax kamid ah haddii lagu helo nooma iman jirin waa diidi jirnay marka shuruudahaas ka mid ah shuruudihii dadka aanu ku dejin jiray gudoomiyaha qaamqaam Cali Faarax Ismaaciil waxaan weydiiyay dadka tuuladan waxa ay caanka ku yihiin ee ay uga duwan yihiin dadka deegaanada kale wuxuuna ku jawaabay waxay caan ku yihiin kow waa dad aan qabiil lahayn oo qaamqaam la yiraahdo qaamqaam haddii aan ku macnayo waa qabiil ma la wooy qabiil ma aha wooy qaamqaam waa qodobka koowaad qodobka labaad intii aad socoteen waddanka aad socoteen ma ku aragteen meeshan aan taagannahay oo kale
ma idinka soo martay geeda leh idinkama soo marin waa waxyaabaha ay caanka ku tahay wey amnigay caan ku tahay dhirta quruxda badan bay caan ku tahay Soomaalinimada iyo maxaan ku yiraahdaa midnimada ummadda Soomaaliyeed ee midaysan bay caan ku tahay oo aan yaa tahay reer hebel iyo waa kii kale midna aan lahayn taariikhadeeda iyo calaamadaheeda kuwaas reer qaamqaam ka mid qaamqaam waxa ay leedahay hoolal dadka martida hal lagu soo dhaweeyo isla markaana lagu sooro waana astaan iyo gobonnimo u gaar ah reer qaamqaam soo dhaweynta iyo martigelinta ka waraysan waa si heer saraawi maanta waan soo gaadeen mina meelogin waa maanta si aan ka xunahay baad maanta nagu soo gashay inaad noo soo sheegtaan culays iyadoo na saaran yahay yaan idin soo dhaweyn lahayn xoolaan idin qali lahayn gogol baan idin dhigi lahayn meel baan idin fadhiisin lahayn waxaanu leenahay hoolal martidu ay leedahay oo aan barnaamijkan kaliya ahayn xagga bidixdaada fiiri xagga maxaad uga jeedaa meel dhisan halka waa hawlka martida weyn marka dadka martida halkaas la geeyaa halkaas la idinku soo dhaweyn lahaa halkaas la idinku soo ri lahaa de waqtigii dambe oo hadii ilaahay idmo ilaahayna waafajiyay inaad soo aadaan waa soo wacaysaa waa soo socon amadna leedii marka meeshan idinku sii dhaweyn lahay yaanu sii diyaarinayna waxa aad qabowdaa naftu ay khushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka ee barateed qalbigaaga galisa ubadkood qurxisood qowlka ee bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlkii nabiga Allahumma salli ala Muhammad alashan xadiiskiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iideysaa madrasada macallim quraan online oo dhowr iyo 10 sano jirtay waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha macallim quraan online waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xaran